iyada oo muddo bil ka yar ay ka harsan tahay go'aanka maxkamadda ICJ ay ka gaarto muranka xuduudda badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta Kenya ay taageereen mid ka mid ah qodobada ku xusan mooshin uu baarlamaanka Kenya horgeeyay aadan ducaale oo laga soo doorto magaalada Garissa oo ay ku jirto in Kenya ciidamadeeda ay geyso badda. Aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta ayaa sheegay inaysan marnaba ka filin xukun wanaagsan Kenya maxkamadda ICJ maadaama uu hogaaminayo muwaadin Soomaali ah. waxa kale oo ay soo hadal qaadeen arrimaha doorashooyinka ee Jubbaland Soomaaliya. Mark oo ka mid ah xubno ka qaybgelaya barnaamijka Inside Politics ee telefishinka KTN ayaa sheegay mar su'aal laga weydiiyay arrimaha doorashada Jubbaland iyo saameynta go'aanka maxkamadda Hague ay ku yeelan doonto. There is ongoing elections in Jubaland. Jubaland and Somalia don't get along. There are reports that Kenya is meddling in that. waxaa jira arrimaha doorashooyinka ee ka socda Jubbaland oo Jubbaland iyo Soomaaliya aysan isla socon oo ay jiraan warar sheegaya in Kenya ay dhexdhexaadinayso arrintaas. Saameyn intee la eg arrintan ay ku yeelan kartaa waxa ka dhaci doona Hague. Just how much of this could have an impact on what's going to happen in The Hague? The election in Jubaland, let me just say this for everybody to hear. Kenya should hit back as much as possible. Number one, that is the place where Al-Shabaab attacks us most in this side. Number two, it's the place where we should go and say we want a 48th county and that should be our 48th county. Let's take the fight to them. doorashada Jubbaland iyo golow inaan ka dhaho si qof walba u maqlo. Kenya waa inay uga jawaab celisaa sida ugu macquulsan. goobtaasi waa dhinaca ay Al-Shabaab weerarada ugu badan inaga soo qaadaan. Tan labaad waa meesha ay tahay in aynu tagno oo aynu dhaano waa ismaamulka 48aad ee Kenya aynu dagaalka u qaadno dhankooda. It's the place where we should go and say we want a 48th county and that should be our 48th county. Let's take the fight to them. Let's bring it as close as possible. Fight fire with fire.